wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo ay weheliyaan wafdi ka socda hay'adda ARC ee wadanka Kuwait ayaa soo gaadhay gobolka Gabiley gaar ahaan banka mashruuca Wajaale oo xilligani barwaaqa ujeedka socdaalka wafdigani ayaa salka ku hayay wareejinta ceelbiyood ay hay'adda ARC ka hirgelisay banka mashruuca Wajaale oo loogu talagalay kobcinta iyo kor u qaadka wax soo saarka beeraha ee Soomaaliland. isla markaasina hay'adda ARC ay maanta ceelbiyoodkaas si rasmi ugu wareejisay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ahna hagaha wasaaradda walow ceelbiyoodkani ay wasaaradda beeruhu munaafacaadsan doonto balse mas'uuliyadda ceelka ay leedahay wasaaradda biyaha ee Soomaaliland. ceelbiyoodkanina waxa uu door laxaad ka qaadan doonaa dadaalada ay wasaaraddu ugu jirto damaanad qaadka soo saaridda cunto ku filan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana wareejinta ceelkani goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ku-xigeenka gobolka gudoomiyaha degmada Wajaale maarayaha mashruuca banka Wajaale iyo sudwaha beeraha ee gobolka. waraan waxa halkaas ka hadlay maarayaha mashruuca Wajaale iyo sudwaha beeraha iyo gudoomiyaha degmada Wajaale oo u mahadnaqay hay'adda ARC ee hirgelisay ceelbiyoodkani. runtii halkan maanta waxaan u joognaa inaan waxa weeye aan la wareegno ceelkan naloo hirgeliyay ee inoo hirgelisay hay'adda ARC Kuwait mana lagu wareejinayo ceelkan ceelbiyoodkan runtii aan uga faa'iideysan doono wax soo saarka dalagyada kala duwan ay ka mid yihiin waxa weeye khudradda kala duwan iyo dalagyada qabadinka. maanta halkan ku daafuri doono insha Allah bidillaahi kariim ceelkan biyaha oo siyaabo badan looga faa'iideysanayo ka wasaaradda ahaan aan ka faa'iideysanayno insha Allah bidillaahi kariim ummadana aan uga faa'iideyn doono haddii Ilaahay yiraahdo taa waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayno marlabaad. waxaa kaloo halkan baaq uga digayaa beeralayda gobolka anoo fursadan uga faa'iideysanaya mar haddii Ilaahay raxmadii noo shubay beerihina si wanaagsan noogu go'aan sidii dhaqankii noo ahaan jiray sakana ka bixiya sadaqana ka bixiya nigu boorinaya si Ilaahay noogu sii wada nimcada. hay'adda Kuwaidiga runta marka laga hadlayo Soomaaliland wax weyn bay ka qabatay. Kuwait waxa kaloo ay naga caawisaa halkan dhakhtarka TB-gana ilaa muddo aad u dheer bay naga caawin jirtay. wax weyn reer Kuwait aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wax badan oo nala qabtay. ceelkan ma aha ceelka kale laftigeeda ayaa qodan waxaanu rajaynaynaa waliba inay maadaama ay jabtay mashruuci Wajaale biyo lagama helayadii waa in la badiyo biyo soo saarka mashruuca degmadani Wajaale. aad baan u soo dhaweynaynaa deeq-bixiyaashaasi arrintaasi fuliyay wasiirka beeraha oo isna arrintaasi hawl weyn ka galay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda ARC Dr. Cabdiraxmaan barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Case iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo sharaxay muhiimadda ceelbiyoodkan u leeyahay wasaaradda beeraha. يطيب لنا في هذا اليوم المبارك وتنفيذا لسياسة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية جمهورية سوماليلاند الزعيم موسى بيحي أن نفتتح ونسلم بئر عبد الرحمن سوار الذهب لوزارة الزراعة والذي يعتبر هذا المشروع مشروع الارتوازي الذي يخدم فئة كبيرة في مجتمع سوماليلاند من أحد مشاريع لجنة أفريقيا لإغاثة ARC التي تعتبر من تعمل في هذا البلد المعطاء منذ 1992 ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التي نفذتها من سلسلة مشاريعها في مجال الآبار والتي بلغت قرابة 60 مشروع ما بين بئر ارتوازي وآبار سطحية وشبه ارتوازية. نقوم عصبة إنه الرماهن أو كلا فرنا dalkana wax badan baan ka wada qabanay hay'adda Kuwait ARC maantana maarta gudoomiyaheena ayaa socda Cabdiraxmaan Macalimo oo runtii aan ugu talagalay inaanu maarta soo furno kuna wareejino dawladda sidii uu sheegay Cabdiraxmaan ayuu yiri tawjiihaadkii uu nasiyay madaxweynuhu uu yiri dalka dhan inaynu wax aad awoodaan aan ka wada qabanno oo maarta taas ayaan ku soconay waxaanan maanta aan furnay aad u jeedaan banki Wajaale oo sida la sheegay hore loo sheegay inaan lagala caagay maarta inay biyo macaan laga helayo laakiin alxamdulillah waa laga helay waanan rajaynaynaa kuwa cusub oo kale haddii Ilaahay noo sahlo
inaan keeno oon ka qodno maadaama dadku ay maaragtay ay aad u xiiseynayaan marka wax kale odhan maayo maaragtay wasiirkana aad baan ugu mahadinaynaa sida sharafta leh uu noo soo dhaweeyey iyo si noogala wareegayo dowladdana waxaan leenahay mar walba wada shaqayn wanaagsan iyo waxqabadka aanu hayno waan idiin soo gudbinaynaa idinkuna waxaan rajaynaynaa in nala garab galo oo maaragtay dee garabkeena aad istaagtaan wixii aanu rabno inaan maaragtay aan dalka ka qabanno aad nagu caawisaan maanta hay-adda ARC oo fulisay ceelkan riigga ah ee laga qoday banka Wajaale oo ah runtii ceelkii jabiyey gidaarkii weynaa ee odhan jiray banka Wajaale biyo ma leh gidaarkaasi wuu jabay waxaana jabisay hay-adda Kuwait ee ARC wata ceelka kale la qoday kuwa kalena way soo socdaan bankii Wajaale wuxuu noqon doonaa ilaahay idamkii maanta wixii ka dambeeya meel durduro oo sidaa riigaya biyuhu ay u socdaan dadku ka faa'iideysan doono beeraha looga faa'iideysan doono dhulkan banka ee oomanaha ahaan jiray ilaahay idamkii bariiska iyo qamadigeenu ka qodi doonaa marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda fulisay iyo hay-addii ku deeqday Cabdiraxmaan Suwaare Dahab raximahullah aad baan ugu mahadnaqaynaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa runtii Dr. Cabdiraxmaan Macluw oo ah gudoomiyaha hay'adda ARC Kuwait oo runtii aan uga mahadcelinayo inuu saak aroortii halkan nagu wareejin doono ceelkii haynoo qadeen hay'adiisu calamin sharaf ay runtii maanta noo tahay inaan ceelkan la wareegno oo runtii ay dadku mar walba ay isweydiin doonaan tolma wasaaradda biyaha runtii ceelkan waxa loo qoday muxuu ahaay banka Wajaale oo wasaaradda horumarinta beeraha laakiin mas'uuliyadda ceelkan waxay saaran tahay wasaaradda horumarinta biyaha oo ka yahay wasiirka wasaaradda saaxiibka Salaaman Cali Koore waanu ka wada hadalnay xal in anigu la wareego waayo wixii biyaha muxuu ahaay waxa nooga wakiilo wasaaradda horumarinta biyaha maanta inuu soo raacay laakiin isaga ay idmaday inaan maanta ceelka la wareego deeyagu waynu garanaynaa dhaqanka Soomaalida anagu awrkiraalan ee wasaaradda beeraha nahay ceelkan waa awrkiraalan noo yahay wasaaradda horumarinta biyaha ay mas'uuliyaddu saaran tahay laakiin anagu manaafacaadkiisaan leenahay wixii wax soo saarka wasaaradda beeraha ah ee siyaasadda xukuumadda uu hogaaminayo mudane Muuse Bixi Cabdi oo runtii ku wajahan wax soo saarka dalkan waa ogtihiin runtii in maanta caalamka u socdo dhinaca wax soo saarka ayay kow ka tahay inuu ceelkan uu noqdo muxuu ahaay inaan wax soo saarka maadaama adduunkani dee roobku marna wuu yaraanayaa sida sanadkan maanta oo kale roobka u badnaba inoo da'ay marna wuu badanaya marna wuu yaraanayaa si marka aanan roobka ugu talagelin baa wasaaradda horumarinta beeruhu ay siyaasadeeda ku wajahday inay biyaha dhulka hoostiisana ay runtii ay la soo baxdo marka hay-addan khayriga ee ARC ee uu nagala joogo gudoomiyaheegii maanta Dr. Cabdiraxmaan uu nagala socdo runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waan kala wareegaynaa ceelkan mas'uuliyadiisina waxay saaran tahay wixii maanta ka dambeeya wasaaradda horumarinta beeraha ayay saaran tahay waxaan rajayn doonaa maareeyaha iyo iskuduwaha gobolkuba iyagoo ka warhayn doona xaaladda mar walba wasaaradda inaan halkan haddii alla yidhaahdo waxaanu ceelkan ugu isticmaali doonaa laba qaybood qayb waxaa ka faa'iideysan doona dadka deegaanka oo waxay ka waraabin doonaa xilliga kulaylka xoolahooga waxaa biyo macaan weeye dadka ka cabi doona dunyada ka cabi doonta intaa waxaan ugu talagalnay meelahaasaan ugu talagalnay inay dadka iyo dunyaduba ka cabaan intaa waxa ka soo harana wasaaraddu iyada ayaa ku manaafacaadsan doonta oo waxaanu ka samayn doonaa kulli waxyaabo badan oo aanu soo bandhigi doono bilowga sanadka haddii alla yidhaahdo waanu bilaabi doonaa sistamkani muxuu ahaay waxaan u gudbi doonaa caalamka wax u beero anigoo qalabkiina keeni doonaa dhowaan haddii alla yidhaahdo sanadkii hore waxaanu ballan qaadnay wasaarad beer ahaan in qalabka wax lagu fasho oo dhan aanu soo dhammaystirno ama ha noqoto cagafyada ama siirinka wax lagu shineeyo ha noqoto dhammaan wixii agab beeraha ay khuseynayay ee wax soo saarka dalka dhammaantii waanu wada keenno maanta wax haba yaraatay qalaba oo dibadda nagala maqanay ma jiro iminkana waxaanu guuri doonaa bilaabi doonaa sistamka caalamka wax ku beero anagoo qalabkii keeni doona mahareeyuhu tegi doona dhowaan wadamada caalamka horumarka gaadhay qalabkaanu keeni doonaa biyahaanu ka faa'iideysan doonaa waxaanu ka wada hadalnay Dr. Cabdiraxmaan Macaliw shalay waxaanu ka wada hadalnay inay hay-adda khayriga ee Kuwait iyo ANC wakiilka ka yahay inay iyaguna ceelal kale
oo runtii aan u baahannahay oo halkan markaanu qiimayn samaynay ilaa 4 ceel oo kale biyo macaan ku jira in ceelasha ayaguna nagala qayb qaataan runtii oo ay wixii nala qaban karaan nala qabtaan annaguna runtii taano ku hambalyeynaya Dr. Cabdiraxmaan waa muxuu ahaay runtii waxaan uga mahad celinayaa muxuu ahaay waxtarka oo Kuwait runtii wax badan bay nala qabatay oo qaan soo tusi doona qamadiga iyo qaabkan wax soo beeray intaasi kadib wafdiga hogaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland waxay kormeer indheedheena ku tageen banka mashruuca Wajaale ee wasaaradda beeraha Somaliland xilligan ay ka beertay dalagyada kala duwan ee wasaaraddu ku doonayso in Somaliland ay kaga saarto cunto yaraanta wayaan la xaji telefishanka qaranka banka Wajaale.